بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتوا عن ونكسن داود يا الملكستو أجوبتان كسروا هذا برنامج كان جارك وعين وطلقنا رأي يجددونها تلفزيون كان عصوب رويال صومالي تي في مقعد عبد النجيب جامع أحمد عبد النجيب تدورك رويال صومالي تي في والله وحفي عم بانو أركاء وحلو بهاي تلفزيون قصور بير تلفزيون اللي هو تلفزيون كانوا تلفزيون عالمي وحلو بهاي إني وحيالها الدماء وبعدين إني سودا وطاي محاجة عشان مركا إنك كداود waxaan jecelahay barnaamijyada diiniga ah iyo isboortiga iyo barnaamijyada kale oo wararka newska ah الرحمن الرحيم markuu horeysa waxaan u hambalyeynaya wariyaasha radio royal tv royal magaaladan ximay xeeb oo wakiilka oo ah tv-gaas waxaan aaminsannahay tv-gaas inuu yahay tv aad iyo aad u fiican oo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iidi karto waxaan ku talinaynaa in barnaamijyada mataqaana ku saabsan arrimaha bulshada iyo dhaqanka wanaagsan badanaa meel lagu soo bandhigo sidoo kale barnaamijyada cilmiga inuu soo bandhigo sidaa darteed aad iyo aad aan ugu hambalyeynaya tv-gaas shaqaalihiisa iyo ciddii soo samaysa insha Allah waan ku faraxsanahay telefishinka cusub ee Royal TV hay maxaa jeceshahay inaad ka daawado waan jeclahay inaan ka daawado siyaasadda Soomaaliya hadda meeshii marayso meeshii ku hoyatay iyo meeshii ka tagtay hay maxaad si qaas u danaysaa waxaan danayaa arrimaha siyaasiga xasaasiga inaan ka helo TV-ga Royal TV hay barnaamijyada arrimaha bulshada ma jiraan barnaamijyada danaysaa dabcan aad iyo aad u danaya arrimaha bulshada sida waxyaabaha dadka dhibaataysan maadaama maanta abaar ay jiraan sidoo kale dagaal ay jiraan in macnaha TV-gu arrimahaas uu xog badan ka sameeyo waa jeclahay Royal waxaan u aragnaa TV cusub oo ku soo biiray Soomaaliya aan aragnaa Royal TV waxaan u arkaa telefishin ku soo biiray telefishinada afka Soomaaliga ku hadla waxaan rajaynayaa inuu ku soo biiriyo maxaan ku raahdaa bulshada wax weyn oo wacyigelin haday tahay waxbarasho haday tahay doodaha haday tahay barnaamijyada ku saabsan waxaan rajaynaynaa inuu wax badan ka bedeli doono bulshada asagoo maxaan ku raahdaa ka faa'iideysan doona kuwii ka horeeyay gaababka ay leeyihiin bismillaahir rahmaanir rahiim wax kasta oo maaragtay warbaahin gaar ahaan TV-yada hadii si fiican ugu adeegayo ummadda waxaan u arkaa inuu wax wanaagsan oo ku soo biiray mujtamaca horumarkiisa Royal TV waxaan arkaa Royal TV television aad iyo aad u fiican inuu yahay waxaan rabaa barnaamijyada diiniga inuu soo bandhigo haddaan imaam xaban iyo xaab deegaan xaban iyo xaab waxaan arkaynaa inuu yahay television aad u wanaagsan fiila sidoo aragtaa Royal Somali TV labadii fiican baa arkaa waxaan jecelahay caafimaad boqol waxaan jecelahay idaacadda waxaan jecelahay arrimaha sports waxaan jecelahay aad u rajaynaya hadii lahayd hay barnaamij qaas ugu xirnaanayso oo macnaha si gaar u danaysa ma jiraa si qaas u danay ma jira laakiin waxa waaye waxaan aad u jecelahay isla socodka wanaaga sharafta aad iyo aad baan u faraxsanahay hay maxaa jeceshahay inaad ka daawato waxaan ka daawanayaa ummadda Soomaaliyeed hay si wararka Royal Somali waxaan arkaa wax wanaagsan ku soo kordhay deegaanka ma daawato adiga haa hay maxaa ka daawataa jeceshahay inaad TV-ga ka hesho waxyaalaha waxaan jecelahay aniga wararka iyo maxaa taraa wixii Soomaaliya arrimihiisa ku saabsan ayaan jecelahay inaan ka daawado aad waan ku faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa sababtoo ah caalamku maanta waa xaafad yar waana wada socdaa telefishinada cusub waxa la meeshay wax marayaan inaan ogaano la socono ayaan aad ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa Royal TV brother ugu horreyn magacaaga magacayga waa Maxamed Xuseen Filibin maxamed Umar sidoo aragtaa TV-ga cusub ee Royal Somali TV runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay telefishinka cusub ee ku soo biiray telefishinada Soomaalida ee caalamiga runtii waxaan jeclahay inaan maaragtay barnaamijyada ku xirnaan doono oo barnaamijyada arrimaha bulshada iyo barnaamijyada la mid ah insha Allah ku xirnaan doono maxaa jeceshahay in si qaas uga daawato TV-ga runtii waxaan jeclaan lahaa inay soo daayaan barnaamij maaragtay isboortiga iyo barnaamij maaragtay wacyigelinta oo bulshada oo ah barnaamijyada insha Allah inay soo daayaan sidoo aragtaa Royal Somali TV walaal ma santa Royal Somali TV waan soo dhaweynaa waxaan u arkaa inuu yahay TV wanaagsan oo wax u qaban doona dadka iyo dalkiisa hay maxaa jeceshahay inaad ka daawato walaal waxaan jeclahay inaan ka daawado Royal TV maadaama aan ahay rag dhalinyaro barnaamijyada isboortiga iyo siyaasadda hay maxaad kula talinaysaa marka oo fikrahan aad jeceshahay inuu ku biiriso
fikradahan aniga waa jilaani waxaan ku biirin lahaa Royal TV in uu si wanaagsan wax ugu qabto dalkiisa iyo dadkiisa kana shaqeeyo sidii ay habsimo socod ugu socon lahayd siyaasadda waddanka Soomaaliya cusub ee Royal Somali TV waxaan u arkaa TV ku soo biiray TV-yada Soomaalida ay hore u lahaayeen waxaana aad ugu jecelahay inay TV-yada kale wax ka bedelan ay ku soo kordhiyaan maxaa jeceshahay inaad ka daawato waxaan jecelahay in Royal Somali TV ay xoog saaraan maadaama aan dhalinyaro aad u jecel sportiga in ay barnaamijyada sportiga xoog saaraan barnaamijkii gaarka ahaa oo daawadayaal nagala qayb galeen siyaasiyiin iyo saxafiyiin sidoo kale dadweynaha ku nool magaalada Cadaado inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waxaad la socodsiinaya barnaamijkan anigoo ah Mukhtaar Xuseen Maalin tan iyo kulantiin dambe sida iyo nabadgelyo